السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعنو وناكسن داوديال halkan waa muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan dagaalka ka socda dalkaasi Itoobiya qodobada saaxiibayaal aad daawan doontaan isla markaana barnaamijkeena aan idinku soo gudbin doono waxa qayb ka noqonaya dagaal culus oo ka soconaya magaalada la yiraahdo Adwa oo kamid ah magaalooyinka muhiimka ah oo ciidamada dawladda Itoobiya ay qabsadeen warbixinayeen kaga heynaa daawadayaal khasaare lixaad le ayaa la soo warinayaa in dagaalka lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo iskaashanaya jabhadda TPLF guulo waaweyn ayay ka sheegatay dagaalkaasi waan idin la wadaagi doonaa rogaal celinta cajiibka ah ay sameynayaan jabhadda TPLF oo sababi karta in magaalooyin kale oo waaweyn ay la wareegaan gantaalo iyo sidoo kale taangiyo waaweyn ayay dagaalka uga qabsadeen ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo isku dhinaca arrintaas ayaana sahashay in ay weeraro rogaal celis oo aad u xoog badan ay ku qaadaan fariisimaha ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa Eritrea ay ku leeyihiin qaybo kamid ah gobolka Amxaarada iyo sidoo kale xadka labada gobol ee Tigray iyo Amxaaro warbixin ayaynu idinkaga soo gudbin doonaa oo barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal dawladda Mareykanka taageeradeedii ay siinaysa jabhadda TPLF waa ay sii xoojisay lacag fara badan ayaa la soo warinayaa iyo hub in ay soo gaarsiisay saacadihii la soo dhaafay jabhadda TPLF-na ay sidaasi ugu suura gashay inay weeraro rogaal celis ay qaado garab istaaga Mareykanka ma wiiqi kara awoodda dawladda Itoobiya waan idin la wadaagi doonaa warbixino iyo xogo muhiim oo arrimahaasi la xiriira sidoo kale waxaad daawan doontaan oo barnaamijkeena aan ku eegi doonaa hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo war ka soo saartay xaaladda ka aloosan gobolkaasi Tigray dhacdooyin murugo leh ayay soo warisay hay'addu in ay markaasi ku aragtay qaybo kamid ah gobolkaasi Tigray ayadana waan idin la wadaagi doonaa qodobadaasi aad bixin ugu soo kordhay inteenu barnaamijkeena ku guda jirno ayaa daawan doontaa saaxiibayaal balse haddii aad nagu cusub tahay marka ay kugu horeysay na daawanayso subscribe channelka inoo saar sii share garay muuqaalka oo laag saar sidoo kalena gambaleelka furusee marwalba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelin waadna ku mahadsan tahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan wararka aynu ka heleyno gobolkaasi Tigray gaar ahaan magaalada la yiraahdo Adwa oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn isla markaana istiraatiijiga ah ee ku yaala gobolkaasi ayaa la soo warinayaa in dagaal culus uu ku dhexmarayo ciidamada dawladda Itoobiya kuwa Eritrea oo isku dhinaca iyo sidoo kale maleeshiyada faano ee ka soo jeeda gobolkaasi Amxaarada iyo ciidamada jabhadda TPLF dagaalka ayaa waxa uu yahay mid markaasi aad u culus saaka aroortii hore ayaana dadka deegaanku ay sheegeen in magaaladaasi uu dagaal culus ka bilowday sagaalkii maalmood ee la soo dhaafay magaaladu waxay ahayd mid aad u degan kadib markii ciidamada jabhadda TPLF oo horay ugu sugnaa magaaladaasi ay ka baxeen ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa Eritrea ay la wareegeen balse ciidamada jabhadda TPLF ayaa waxa ay markaasi bilaabeen inay dib ugu soo rogaal celiyaan magaaladaasi iyaga oo haatan la soo warinayo in qayb kamid ah magaaladaasi ay joogaan sababta dagaaladu ugu soo laalaabteen magaaladan ayaa waxa ay tahay in ay tahay meel markaasi istiraatiiji ah oo labada ciidanba oo midba midka kale uu doonayo inuu ka riixdo isla markaana uu isagu ka dagaal tago magaaladan la wareegideeda waxay markaasi dawladda Itoobiya u sahli kartay in ay markaasi ku siisiqaan qaybo kale oo muhiim ah oo kamid ah gobolkaasi Tigray balse jabhadda TPLF ayaa fahantay muhiimadda iyo sidoo kale istiraatiijiyada ay leedahay magaaladani waxa ayna markaasi awood u yeesheen inay dib u weeraraan magaaladaas oo markii hore ay sheegeen in ay uga baxeen xal siyaasadeed kataaju reedha waafayaanka markaasi jabhadda TPLF isla markaana ah ninka ugu badan ee warbaahinta isagu wararka dagaalkaasi siiya ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay weerar ku qaadeen fariisin ku yaala magaalada Adwa oo ay lahaayeen ciidamada Eritrea iyo kuwa dawladda Itoobiya magaaladan waa istiraatiiji markii hore xal siyaasadeed ayaynu uga baxnay inagoo markaasi adeegsanayna xeelad dagaal haatana weerar kale ayaynu ku qaadnay qayb kamid ah magaalada annaga ayaa joogna awoodda ciidankeena iyo sidoo kale shacabkeena ayaan kaashanaynaa waxaana markaasi doonaynaa in gebi ahaanba magaaladan iyo magaalooyinka kale ee u dhaweyn gacanta ku dhigno maalmaha soo aadan rajadeenu waxay tahay in gobolka Tigray oo dhan aynu ka bixino gacanta cadawga oo ula jeedo markaasi dawladda Itoobiya iyo xulafadeeda oo Eritrea ay kamid tahay waxaan diyaar u nahay in aan u dhimano dadkeena iyo dhulkeena ma doonayno in ciidamo isbahaystay ay naga adkaadaan shacab iyo markaasi ciidamadooda oo iskaashanayana ma jirto awood markaasi loo babac dhigi karo ciidamada Itoobiya way naga adkaa waayeen
haddii lagu soo daro ciidamo kalena ma awoodi doonaan inay markaasi naga badiyaan. ciidamada dowladda Itoobiya dalkan waa dalkoodii waana dhulkoodii, waa ay kala garan waayeen meesha markaasi ay ku dagaalamayaan. awood military ayaynu ku maquuninay inagoo shacabkeena garabka helayna, cid iyaga ugu aqoon badanna ma jirto. ciidamada Eritreana halkan ma yaqaanaan, waan ku baabi'inay oo khasaare xoogan ayaa gaaray, wayna ka shalaayi doonaan haddii markaasi ay sii joogaan oo khasaaruhu intaan wuu kasii ballaaran doonaa, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Getachew Reda oo markaasi ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee jabhadda TPLF, sidoo kalena wararka dagaalka la xiriira isagu baahiya. dagaalka ayaa waxa uu yahay mid aad u culus, waxayna markaasi TPLF sheegtay inay guulo waaweyn ka gaareen, inkastoo dhinacyada Eritrea iyo Itoobiya weli dagaalka aysan ka hadlin iyo khasaaraha markaasi ay sheeganayaan inay gaarsiiyeen jabhadda TPLF qayb ka mid ayaa la soo warinayaa inay magaalada ka haystaan qaybihii ugu badnaa ee magaaladana ay ka saareen ciidamada markaasi huwanta ah ee Itoobiya iyo Eritrea. dhinaca kalena hay'adda markaasi lagu magacaabo Human Rights Watch oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa war waxa ay ka soo saartay xaaladda ka aaloosan gobolkaasi Tigray, iyada oo laga jawaabayo dhacdooyinka ka socda gobolkaasi Tigray ee Itoobiya oo ay ka mid yihiin carqaladeynta dowladda federaalka ee shabakadaha isgaarsiinta ee gobolka. Mose Sigon oo ah agaasimaha Afrika ee Human Rights Watch ayaa sidaas yiri: guud ahaan dadka reer Itoobiya waxa ay markaasi sanadihii ugu dambeeyay la kulmeen rabshado maalinle iyo tacadiye. ilaa haatan ma jirto ficilo lagu xalliyo dhibaatooyinka aan markaasi daaha laga qaadin ee ka dhex aaloosan Itoobiya. maamulka federaalka iyo kuwa maamul goboleedyaduna waa inay xaaladda amni ee soo ifbaxaya si degan markaasi uga jawaabaan, iyadoo la ilaalinayo xuquuqda dhammaan dadka Itoobiyaanka ahi. waxaan saaxiibada caalamka ee Itoobiya oo ilaa haatan aamusan ugu baaqaynaa inay gudbiyaan fariintan. xadidaadda khadka isgaarsiinta ee gobolka Tigray ayaa sidoo kale xadidaya soo tabinta warbixinada halista ah ee ku saabsan dhibaatooyinka ay shacabku kala kulmi karaan tallaabada military ee dowladdu ku dhawaaqday. martii horeysay ayuu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dalka Itoobiya markaasi amar ku siiyay militariga dalkiisu in ay gutaan waajibaadkooda ah in dalka iyo dadka laga badbaadiyo jabhadda markaasi TPLF, isla markaana ay tallaabo ka qaadaan gobolkaasi Tigray oo uu ku eedeeyay in ay dagaal bilaabeen. ra'iisul wasaaraha ayaa xisbiga TPLF ku eedeeyay in ay weerareen saldhig military oo ku yaala gobolkaasi Tigray ka hor inta aanu dagaalku bilaaban 4 November sanadkii 2020. TPLF ayaa horey waxay markaasi ugu eedeysay maamulka Abiy Ahmed inuu marmarsiyo ka dhiganayo viruska coronavirus si uu awoodda markaasi u sii hayo maadaama waqtigiisu ku ekaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2020. dowladda dhexe ayaa markaasi dhankeeda ku eedeysay goonida TPLF in ay markaasi ka dambeeyeen qulqulatooyinka ka dhacay meelo dalka ka mid ahi. sida ay sheegtay shirkadda markaasi la socota xorriyadda internetka ee NetBlocks la yiraahdo, waxaa gobolka Tigray ka go'an internetka iyo sidoo kale khadka telefoonada. bayaanka uu soo saaray ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku yiri in khadka cas markaasi laga tallaabay, isla markaana si dadka iyo dalka loo badbaadiyo oo khiyaarka ugu dambeeya oo noqday in awood loo adeegsado jabhadda TPLF. horaantii toddobaadkan gudoomiyaha TPLF Debretsion Gabri Mitchell ayaa ku eedeeyay maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in ay kala shaqeeyaan dowladda dalka Eritrea si loo diyaariyo weerar gobolka lagu soo qaado. xisbiga TPLF ayaa awoodda dalka Itoobiya gacanta ugu jirtay ku dhawaad muddo 30 sanadood ahi, markaas oo kadib ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xukunka kala wareegay 2018. TPLF ayaa waxa ay ka bixeen xisbiga talada hayay kadib markii ay diideen in ay ku biiraan xisbiga barwaaqo, balse TPLF ayaa waxa ay weli ka taliyaan gobolkaasi Tigrayga. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli muddo bilooyin ah ay sii kordhaysay xiisadda u dhaxaysa dowladda dhexe iyo maamulka gobolka Tigrayga. waxay sidoo kale arrintani ay ku soo beegmaysaa xilli maalintii shalay ahayd 32 qof oo Amxaar ah lagu dilay gobolka Oromiya. haddaba halkee ayay ku dambeyn doonaan xaaladaha markaasi ka soo cusboonaaday gobolkaasi Tigray iyo dagaalada muddada 2 sanadood iyo barka ka badan ka soconaya gobolkaasi? qodobadaas iyo wixii la xiriira dagaalada ka socda dalka Itoobiya barnaamijyadeena iyo wararkeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal. balse haddii aad nagu cusub tahay oo marka ay kugu horeysay inaad daawatay subscribe channelka inoo saar si share gareyn muuqaalka oo la agsar sidoo kalena gambaleelka furasi ee marwalba kuu soo gaaraan xogaha inuu halkaan soo gelino. waadna ku mahadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba
inta aan warkan kiisa kale aynu ku kulmi doono saaxiibayaal sida iyo nabadgelyo.